casharkan waxa uu ka mid yahay casharada kooraska Learning Basics of Turkish Language kooraskaas oo lagu baran doono luqadda Turkiga oo bilow ah amba levelka ugu hooseeya amba marxaladda ugu hooseysa ah waxaana lagaga soo bilaabi doonaa xuruufta amba alfaabeetada ay ka kooban tahay luqadda Turkigu ilaa la gaarsiinayo inuu ardaygu ku qori karayo kana macnayn karayo jumlad dhameystiran oo Turkiga ah amba afka Turkiga ah kooraskan intuu socdo waxa si waadix ah loogu baran doonaa qaababka wada hadallada amba wada sheekaysiga Turkiga loo sameeyo ko waxaana xusid mudan inuu kooraskan macallimiinta dhigaysa ay yihiin macallimiin Soomaaliya sidoo kalena uu ku bixi doono afka Soomaaliga amba afka Soomaaliga lagu dhigi doono haddaba cidii u diyaara kooraskan amba u baahan inay warbixin dheeri ka hesho waxay la soo xiriiri doontaa nambarka WhatsApp-ka ee shaashadan hortaada kaaga muuqda بسم الله الرحمن الرحيم عشر كينا حيقامان توحو نقون دونا erayo kooban oo loo adeegsado qaab salaan ahaan ah tamam okay casharkeena aan sii guda galna marka merhaba micnaheedu waxay tahay hello haye oo kale qof markaad aragto ayaad leedahay merhaba okay micnaheedu waxay tahay haye hello oo kale merhaba jawaabteedana isla waa un merhaba okay qofka merhaba hadduu ku dhaho isla merhaba ayaad u celinaysaa jawaabteeda tamaam merhaba micnaheedu waxay tahay hello haye jawaabteedana waa merhaba hello ama haye oo kale tamaam okay erayga labaad wuxuu yahay gunaydan micnaheedu waxay tahay subax wanaagsan gunaydan waa subax wanaagsan okay subaxii hore markay qofka arkaan qofka luqadda u dhashay luqadda Turkiga waxay dhahaan gunaydan subax wanaagsan jawaabteedana waxay tahay isla gunaydan okay isla subax wanaagsan tamam gunaydan subax wanaagsan okay waxaa sii xiga iyo gunlaar macnaheedu maxay tahay maalin wanaagsan iyo gunlaar maalin wanaagsan okay iyo gunlaar jawaabteedana waa un iyo gunlaar maalin wanaagsan sidoo kale iyo gunlaar waa maalin wanaagsan maxaad ugu jawaabaysaa marka isla iyo gunlaar maalin wanaagsan tamam okay waxaa sii xiga iyo akshamlaar oo micnaheedu tahay fiid wanaagsan ama fiidnimo wanaagsan iyo akshamlaar fiid wanaagsan ama fiidnimo wanaagsan tamaam waxaa sii xiga iyo gajalaar oo micnaheedu tahay habeen wanaagsan iyo gajalaar waa habeen wanaagsan okay jawaabteedana waa un iyo gajalaar habeen wanaagsan sidoo kale tamaam haddana waxaa qaadanaynaa erayo iyo sawiro iswata okay erayga koowaad wuxuu yahay otur micnaheedu waxay tahay fadhi otur tamaam erayga labaad wuxuu yahay kaalk waa istaagid kaalk tamaam erayga saddexaad wuxuu yahay gaal waa imaansho geel qoraal ahaan waa geel laakiin gaal ayaad ugu dhawaaqaysaa gaal waa imaansho erayga sii xiga waa git tegid ama bixid git okay bixid ama tegid okay erayga sii xiga koonush waa hadal koonush macnaheedu waxay tahay hadal okay erayga sii xiga aaj waa kala furid ama furid furidda caadiga waa un aaj hadda buug ayuu kala furayaa laakiin furitaanka caadiga ahna waa un aaj waa furid erayga sii xiga
oku waa aqrin, oku waa aqrin. ereyga sii xiga ver waa siismo, ver waa siismo. Okay. waxaa sii xiga suus micnaheedu waxay tahay aamus oo kale markaad qof amrayso, suus aamus. waxaa sii xiga dinle dhegeysi, dinle waa dhegeysi. waxaa sii xiga yaaz waa qorid, yaaz waa qorid. waxaa sii xiga siil waa masixid ama tirtirid, siil masixid ama tirtirid. Okay. tamaam cashirkan maanta halkaas ayuu ku egyahay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.